ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xabsiga u taxaabay Sheekh Salaad Maxamuud oo ku magac dheer Sheekh Shantaay. intaana u gudagalay muuqaalka fadlan hadaa ku cusub tahay channelka subscribe noo saar muuqaalkana like saar si aan u helno asxaab wanaagsan sidaadoo kale mahadsanid. sida ay wararku sheegayaan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya gaar ahaan booliiska gobolka Banaadir ayaa doornimadii maanta xabsiga dhigay Sheekh Maxamuud Salaad Shantaay. ciidamada oo ahaa kuwa aad u hubeysan ayaa doornimadii maanta gurigiisa kala baxay Sheekh Shantaay ayagoo la aaday dhanka saldhigga degmada Hodan. sida ay wararku sheegayaan waxaa sababay xariga Sheekh Shantaay hadal uu horay uga yiri ciyaal weerarada oo ku tilmaamay inay isbaar dhigtaan wadooyinka caasimadda Muqdisho sidoo kalena ay canshuur ka qaadaan dekedda Muqdisho. sidoo kale muuqaal uu soo duubay Sheekh Shantaay ayaa wuxuu gaaleysiiyay ciyaal weerarada wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin gaalo faasiqiin ah. waxaa maalmahan nagu batay niman bulshadu inta ugu badan ay ku siran tahay ee aan muslimiin ahayn, munaafiqiin, dhaalimiin, faasiqiin, mushrimiin, arxan dararyaal ah, nolosha dadka u dhaafsiiyo laptop iyo mobile. dilkii ugu dambeeyay ee xalay aan ka hurdi waayay waxay u geysteen hooyo muslimada oo la ciiday la soo ciiday balcad kaga timiday qaraabadeydii iyo reerkeydii dad ka mida inay waqti la qaadato laba caruur ah kaga soo tagatay balcad. Sheekh Shantaay ayaa haatan wuxuu ku xiran yahay saldhigga degmada Hodan halkaas oo su'aalo adag lagu weydiinayo xilligan.